waxaana heen wuxuu ku bilaabanay laba askari booliis oo laga kala magacaabo Raiko iyo Shin. waxaan ogaanaynaa horta Raiko iyo Shin kaliya inay yihiin shaqo wadaag iyo in kale labadooda kaliya shaqo wadaag maahan, sidoo kale waa saaxiibaad isugu dhow sida walaalaha oo kale. Raiko wuxuu qabaa haweeney lagu magacaabo Lurio waxayna haystaan hal wiil oo la yiraahdo Carl. Shin wuxuu noqonay xubin muhiim ah oo kamid ah qoyska qofka Raiko ugu kalsoonida badan. waxaan aragnaa Raiko iyo Shin oo wada fadhiya sheekaysana oo kaftamaya, laakiin hadalkooda waxaa joojinaya wardega koox dambiilayaal ah isku day inay baxsadaan booliiska darooba Erean markaas ay labadoodaba isla markiiba dhaqaaqayaan si ay uga qayb qaataan howlgalka. waxay u dhaqaaqayaan si ay u bixiyaan taageerona qabtaan dambiilaha, isla markiina way gaarayaan goobta halkaas ayna dagaal culus ka dhexdhexaya iyaga iyo dambiilayaasha is rasaaseenayaan. kadib dagaal dheer oo aad u khatar badan, Raiko iyo asxaabtiisa waxay awood u yeelanayaan inay ka takhalusaan dhammaan dambiilayaasha, laakiin arrin la yaab leh ayaa dhacaya, taasi oo ah mid ka mid ah dambiilayaasha ayaa weli nool iyaguna ma oga. dambiilahaas ayaa si lama filaan ah rasaas ugu soo furaya nasiib dar halkaas waxaa ku dhaawacmaya Mr. Raiko ayaana markaan miirbeelay booliis kalena waxay ka takhalusaan dambiilihii kadibna Raiko is degdeg u qaadan iyagoo geynaya isbitaalka, laakiin dhaawicis aad u halis sababtaas darteedna Raiko wuxuu galayaa koomo. Shinna mar walba booqan jiray saaxiibkiisa, sidoo kale wuu iska hubin jiray xaaladiisa wuxuuna u keeni jiray ubax, inkastoo Raiko uu ku jiray koomo xaaladiisu ay adkeyd. mararka qaarna wuu soo baraarugi jiray wuxuuna dareemi jiray inuu Shin ag joogo, sidoo kale uu keeno ubax maalin waliba. maalmo iyo bil ayaa sidaas ku dhaafaysa, balse maalmaha kamid ah Raiko ugu dambeyn uu kusoo toosay koomadii miirkiisa ayaanu soo laabanay, laakiin markuu indhaha kala qaado Raiko wuu yaabaya markii uu arko ubaxii marwalba loo keeni jiray oo khalad. taasina waxay ka dhigan tahay in cidna ay soo booqan muddo dheer. wuxuu kale ogaanay in qalabkii caafimaad ee ku xirna la dimiyay intii uu ku jiray koomada, cidna inaysan daryeel u muujin. Raiko ayaa wuxuu bilaabayaa inuu u yeero kalkaaliso si ay u caawiso maadaama uu weli tabardaran yahay, laakiin nasiib dar cidna kama jawaabayso hadalkiisa. markaas ayuu isqasbaya wuuna istaagay si uu gargaar u raadsado. markii uu kasoo baxo qolka lagu hayay wuxuu la yaabayaa in isbitaalkii uu si buuxda u burburay, mana jiro hal qof oo nool oo gudaha ku jira. Raiko wuxuu bilaabayaa inuu dhex lugo isbitaalka isagoo wareersan, isagoo aan fahmin waxa dhacaya. kadib wuxuu arkay mid sarxandar ah loo dhiig badan oo ku daadsan yahay agtiisa. Raiko aad ayuu u baqay wuxuuna si degdeg ah uga baxaya isbitaalka, laakiin yaabka ugu weyn ayaa markaasi dhacaya. markuu dibad u baxo wuxuu arkaya wadooyinka oo meydad buuxaan iyo dhismooyin si daran u burburay. Raiko wuxuu qaadanaya baaskiil dhulka yaalay si uu ugu laabto gurigiisa maadaama uu doonayo inuu soo hubiyo xaaskiisa iyo wiilkiisa. markuu guriga gaaro wuxuu bilaabaya inuu ku qayliyo magacyadooda wuxuuna u raadinayaa si waali ah, laakiin nasiib dar cidna uma jawaabayso. markaas ayuu maleynaya in xaaskiisa iyo wiilkiisa ay dhinteen. Raiko uu burburaya gebi ahaanba wuxuuna bilaabaya inuu ooyo weliba si daran isagoo aan rumaysan karin waxa dhacay, xanuun iyo argagax awgiis. markaas uu maleynaya waxaas dhan dhacay inay yihiin kaliya riyo. wuu garaacaya si uu iskugu dayo inuu ka tooso riyada, laakiin waxba kama tarayo waxaas oo dhan, waayo waa qof caadi ah oo soo jeeda. muddo kadib Raiko uu isdejinaya wuxuuna fadhiisanaya guriga hortiisa isagoo murugo iyo wareer la ildaran. intuu sidaas u fadhiyay wiil yar gadaalka imaanay kadibna wuxuu ku dhufanaya madaxa wiilkaas. wuxuu rabaa inuu dilo Raiko, laakiin ilbriqsi ugu dambeeyay ayuu istaagaya markuu ogaado inuu Raiko nool yahay bini'aadam caadi ah uu yahay uusan ahayn zombie. markaas ayaa waxa imaanaya aabaha wiilka wuxuuna caawinaya Raiko kana kaxeynaya meesha. waxaana markaas ogaanaynaa in ninkaasi la yiraahdo Morgan. markii uu Raiko nasto wuxuu la fadhiisanaya Morgan iyo wiilkiisa waxayna bilaabayaan inay u sharxaan wixii dhacay. waxay u sheegayaan intii Raiko uu ku jiray koomada in uu faafay cudur cusub oo halis badan. cudurkaas wuxuu sababaa in heerkulka jirka si xad dhaaf ah uu kaco ilaa uu qofka ka gaaro xaalad aad u daran. dhammaadkan qofku uu ku dhaco cudurkan wuxuu dhimanayaa kuleelka jirka oo aad u daran, laakiin maahan taasi dhibaatada ugu weyn ayaa waxay tahay in qofka cudurka uu dhintay mar kale soo noolaanayo, welibana isagoo zombie ah. waxayna u sheegeen in cudurkan uu si xun ugu faafay dunida oo dhan, isla markaana zombiyadu meel walba ay joogaan. qof kasta oo zombiyada khaniinto ama xitaa ay xaqdo isagan wuxuu isku bedelayaa zombie. markaas ayuu Morgan bilaabaya inuu siiyo Raiko macluumaad ku saabsan sida uu isaga isku difaaci lahaa. wuxuuna u sheegay in zombiyadu ay aad u jeceliin iftiin xooggan iyo cod dheer, sababtaas darteedna iyagu waxay isticmaalaan iftiin daciif ah mana sameeyaan buuq ama dhawaaq fara badan. Morgan wuxuu kaloo sheegay in halka keliya ee lagu dili karo uu yahay zombiyada madaxa. wax kasta oo kale haddii aad ku samayso wax saameyn ah kuma yeeshaan. kadibna Morgan wuxuu Raiko u sheegaya sheeko muruga leh, isagoona uu sheegay in xaaskiisii hore ugu dhacay cudurkaasi waxayna ahayd inuu dilo ka hor inta aysan isu bedelin zombie, laakiin wuu kari waayey inuu dilo hooyada wiilkiisa. waxa keliya ee uu sameeyay ayaa waxay ahayd inay ka fogaadaan isagii wiilkiisaba si ay meel kale ugu bedelanto zombie. si kastaba ahaatee isagii wiilkiisaba marar badan ayay arkeen iyadoo weli ku sugan deegaankaasi, welibana iyadoo noqotay zombie. arrintaasna aad ayay u murugooneen, laakiin wax ay sameeyaanna ma jirto. Raiko wuu dhegeysanaya dhammaan arrimahaas isagoo yaaban oo naxsan, mana rumaysan karo waxa dhacaya. wuxuuna isleeyahay
maryo ayaan ku jiraa mase tani waa. Maalintii xigtay Raiko wuxuu go'aansanay inuu mar kale ku laabto gurigiisa si uu u hubiyo in xaaskiisa iyo wiilkiisuba ay weli nool yihiin iyo in kale isaga iyo Morgan ayaan israacaya. Waxaana bilaabayaan inay raadiyaan wax kasta oo siin kara waa xogka. Markaas Raiko ogaanay in dhar badan ay ka maqan yihiin guriga, sidoo kale dhammaan sawiradii qoyska ay meesha ka baxeen. Taasina waxay ka dhigan tahay inuu fahmo in xaaskiisa iyo wiilkiisa aysan weli dhiman. Wuxuu garwaaqsanaya inay iyagu qaateen alaabtaas kana carareen guriga. Morgan ayaa markaas wuxuu dhahay haddii ay dhab ahaan nool yihiin waxay u badan tahay inay jeestiin magaalo la yiraahdo Atlanta. Morgan wuxuu sharxayaa in Atlanta loo arkay meel ammaan ah maxaa yeelay bilowga cudurka ciidanka ayaa ka sii deyn jiray warar raadiya. Waxay sheegi jireen in magaalada si buuxda looga ilaaliyo zombiyada, sidoo kale waxay ku dhawaaqi jireen in halkaas ay taalo cunto, biyo iyo daryeel oo loo diyaariyay dad ka badbaaday cudurka. Ciidanka warkaas uu sii deyn jiray bilowgii faafitaanka cudurka ilaa isgaarsiintii go'day, laakiin waxaa la rumaysnaa in qof kasta oo ka badbaada zombiyada uu halkaas u carari doono. Raiko wuu rumaysnaa hadalka, wuxuuna go'aansanayaa inuu safro Atlanta isagoo rajadiisu tahay in xaaskiisa iyo wiilkiisuba ay halkaasi joogaan. markaas ayuu dhaqaaqayaa saldhigga booliiska si uu isu diyaariyo ugana qaato hub iyo qalab uu safarka ugu baahan doono. Ka hor inta uusan bixin Raiko wuxuu ka baryayaa Morgan inuu wiilkiisa soo qaato oo ay wada safaraan, laakiin Morgan wuu ka diidayaa wuxuuna ku dhahayaa aniga wiilkaygaba ma rabno inaan ka gurno halkan, waxayna doorbidaan inay sidaan ku noolaadaan. Markaan Raiko wuu ixtiraamayaa go'aankiisa wuxuuna ugu tagayaa sida uu rabo, wuxuuna siinayaa raadi ama laasika si ay mar walba isku xiriiraan. Isagoo tinay wuxuuna qaadanayaa gaarigiisa isagoo u jihaysanaya Atlanta. Intuu jidka ku jiro Raiko wuxuu raadiyaha ka sii deynaya fariin, wuxuuna leeyahay anigu waan badbaaday, waxaan u socdaa Atlanta. Wuxuu sameeyay arintaas si haddii ay jiraan dad kale oo nool oo u dhow ay maqlaan uguna soo jawaabaan. Runtii fariintaasi waxaa maqlaya koox dad ah oo badbaaday. Waxaase la yaab leh in Shin saaxiibkii Raiko uu ka mid yahay kooxdaasi. Intaas kuma eka, Lori xaaskii Raiko iyo wiilkooda Carl ayaa iyaguna ku jira kooxdaasi. Shin iyo Lori way maqlaan fariinta laakiin ma garanayaan codkiisa maadaama isgaarsiintu ay aad u diidato. Waxa kaliya ay maqlaan ayaa waxay tahay inuu qof u socdo Atlanta. Waxay isku dayayaan inay ugu digaan inuusan tagin halkaasi, laakiin fariintooda ma gaarayso Raiko. Halkaas ayaana lagu ogaanay in markiiba cudurku ku faafay halkaasi. Shin iyo Lorina waxay u maleynayaan inuu ku dhintay isbitaalka Raiko sababtoo ah cudurka si weyn ayuu ugu faafay isbitaalkaasi. Ciidankuna waxay u tageen si ay u dilaan dhammaan dadka qaba cudurka. Waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka iyo zombiyada. Markaas ayayna u qaatay in Raiko uu ku dhintay xasuuqaasi, taasi ogeed waxay soo qaatay wiilkooda wayna soo baxeen. Muddo kadibna waxay ku biireen koox kale oo dad badbaaday ah, waxayna la noolaayeen iyaga. Yaabka ugu weyn ayaa ah in Shin iyo Lori ay hadda xiriir jacayl ay leeyihiin. Isla waqtigaas Raiko wili uu sii wataa safarkiisa. Muddo kadib gaaskii gaariga ayaa ka dhamaanaya, wuxuuna ka soo degayaa gaariga. Markaas ayuu bilaabaya inuu guryaha ka raadiyo, laakiin waxba kama helayo. Si lama filaan ayuu ku arkayaa faras. Markaas wuxuu go'aansanaya inuu safarkiisa ku sii wato farastan. Ugu dambeyn Raiko wuxuu gaaray Atlanta, laakiin wax la yaab leh ayuu meesha ku arkaya. Inta ma arkayo hal qof oo nool. Raiko aad buu u yaabaya isagoo isla xagee dadkii oo dhan ay aadeen. Raiko wuxuu sii wadanayaa safarkiisa weliba isagoo dhex wareega magaalada isagoo aan waxba fahmin. Ilaa uu la yaabo markii uu arko koox dad ah oo isu bedelay zombie. Tan waxay ka dhigan tahay in dadka oo dhan oo ka badbaaday magaaladaas ay hadda isu bedeleen zombie. Raiko wuxuu isku dayayaa inuu dhaqsaha ugu soo baxsado, laakiin dhammaan zombiyadii meesha joogay ayaa bilaabaya inay daba socdaan ma inay daba ordaan. Dib raacitaan dheer zombiyadu waxay ku hareereysmayaan Raiko meel weliba, mana jiro meel uu u baxsado marka laga reebo taangigan hortiisa yaala. Raiko ayaa markaan wuxuu galaya taangiga wuuna isku soo qufulaya. Zombiyaduna waxay ku hareereysan taangiga dhammaan dhinacyadiisa. Raikona wax uu sameyn ma yaqaan, wuu naxsan yahay ilaa uu ka fikiro inuu is dilo ka hor intaysan zombiyadu meesha soo gelin, kadibna isaga cunan. Laakiin daqiiqadii ugu dambeysay wuxuu helayaa fariin raadiyaha malaasikada uu gacanta ku wato qofka loo taangiga ku xiran ayaan soo qeylinaya. Wuxuuna ku dhahay aniga waan u jeedaa waxa dhacaya, waan ku caawin doonaa si aad uga baxdo ciriiriga ee waxyar ii kaadi. Qofkaasi waxaa la yiraahdaa Galen wuxuu ku dhahay Raiko dhageysta tilmaamahayga, wuxuuna bilaabaya inuu siiyo talaabo si uu uga baxo taangiga, si uu uga fogaado zombiyada ku hareereysan. Raiko wuxuu raacayaa dhammaan tilmaamaha Galen, wuxuuna si mucjiso leh uga baxaya ciriiriga. Ugu dambeyn wuxuu gaaray meesha Galen uu joogo. Markii ay kulmaan labadooda waxay fuulayaan dhismaha sare waxayna ka dhulmanayaan zombiyada. Galen wuxuu la socdaa koox badbaaday oo ay ku jiraan Andre, Morris, Douglas iyo Meryl. Raiko la kulmaya kooxdaas wuxuuna ogaanay in Meryl uu yahay qof aad u kardara badan, wuxuuna rasaas ku furay zombiyada dhismaha sare ayagoo saaran, taasoo keentay in zombiyadu ay ku hareereysmaan dhismaha oo dhan. Qof kasta oo kooxda ka mid ahna ma awoodo inuu la hadlo Mr. Meryl sababtoo ah qof kasta oo la hadlo wuxuu ku dhufanaya xabad. Markaas Raiko wuxuu soo saaraya xadhigyo, wuxuuna ku xirayaa Meryl tubada kor ee dhismaha. Kadibna way fadhiisanayaan Raiko iyo kooxdaba, waxayna bilaabayaan inay ka doodaan sida ugu wanaagsan ee uga bixi lahaayeen dhismaha sababtoo ah zombiyadu waxay ku hareereysan yihiin dhismaha, tiradoodan aad bay u badan tahay, mana awoodaan inay si toos ah ula dagaalamaan. Kadib markii ay fikiraan waxay ogaanaan kaliya inuu ka horeeyo hal xaal, taasi oo ah inay dhexmaraan zombiyada. Galen wuxuu sharxay in zombiyada ay ku soo jeestaan iftiin iyo dhaqdhaqaaqyada labadaba ama qaylo. Markaas ayuu ku dhahay waxaan isticmaalinaa kaliya tilmaamo si aan uga baxno halkan. Galen wuxuu Raiko u sharxay in zombiyada ay soo jeetaan urta dadka, laakiin haddii ay isku daraan dadka meydka ah waxay ku dhex socon karaan zombiyada iyagoo aan la weerin. Inkastoo ay fikirdan halis tahay, laakiin Raiko iyo Galen waxay isku dayayaan fikirdan inay sameeyaan. Way soo baxayaan waxayna helayaan zombie meat ah, waxayna u jibinayaan qaybo. Kadib Raiko iyo Galen waxay istimarnayaan
dhiiga zombiyada si ay ugu ekaadaan iyagoo isu diyaarinaya inay ka baxaan dhismaha kahor inta aysan bixin. Raiko wuxuu siinaya Glenn furayaasha xadhkaha, kadib waxay si dhaqso ah uga baxayaan dhismaha, waxayna si tartiib ah ugu dhex soconayaan zombiyada. Waxa la yaab leh qorshoodu uu shaqeynaya, zombiyadu ma garanayaan inay yihiin bani'aadam mana weerarayaan. Markaasi labadooda waxay go'aansanayaan inay keenaan gaariga oo ay la socdaan kooxda intiisa. Wax walba markaan si fiican ay u socdaan, laakiin waxaa dhacay waxaan la filayn. Roob ayaa bilaabmaya, biyaha ayaana ka dhaqaya urta iyo dhiigga. Zombiyaduna waxay bilaabayaan inay dareemaan jiritaankooda. Raiko iyo Glenn waxay bilaabayaan inay ordaan, zombiyaduna iyaguna way daba soconayaan oo way daba ordayaan. Laakiin ugu dambeyntii way kasoo baxsanayaan, waxayna tagayaan meel uu yaalo laba gaari. Glenn wuxuu kaxeynaya gaariga koowaad, wuxuuna jiidaya dareenka zombiyada si ay uga fogaadaan dhismaha. Raiko wuxuu kaxeynaya gaariga labaad, wuxuuna soo qaadaya kooxda intiisa kale. Markii Raiko gaariga geeyo, dhammaantood way fuulayaan wayna baxsanayaan. Douglas uu diiday inuu baxo sababtoo wuxuu ku dhahay meeshan waxaa ku jira qof xanuunsan, isagoon isku daya inuu ka caawiyo furayaasha, laakiin si lama filaan ah wuu ka dhacaya, wuxuuna ugu dhacaya biyaha, waxayna luminayaan taas fursadii Mr. Mary. Douglas ayaa markaan wuxuu ka khasbanaanaya inuu ka baxo, wuxuuna la baxsanaya kooxda isagoo naftiisa halis gelinaya. Kahor intuusan bixinna wuxuu xildaan u sameynaya Mr. Mary si zombiyada aysan u soo gaarin. Raiko iyo kooxda intiisa kale waxay fuulayaan gaariga wayna baxsanayaan. Glenn ayaana ka dambeeya gaariga labaad, wayna badbaadaan dhammaantood markii laga reebo Mary oo weli ku xidhan dhismaha. Markii ay gaaraan xeradooda, Raiko wuxuu ogaanaya in koox weyn oo badbaaday halkaas ay joogaan. Dadkii ula joogay markii hore waxay u soo baxeen inay raadiyaan cunto iyo qalab, waxayna ku soo biireen kooxda. Markii ay gaaraan xerada, yaabka ugu weyn ayaa waxay tahay in Sheen, Lori iyo wiilka Karel halkaas ay joogaan. Raiko uu naxaya markuu arko xaaskiisa iyo wiilkiisa, markaasuu ku soo ordaya weliba isagoo gacan isku qaadaya, yacni inuu riyo ku jiro in kale isfiirinaya. Sababta wuxuu rumaysay inaysan nooleen. Lori iyo Karel sidoo kale way yaabayaan, maxaa yeelay waxay u maleynayaan Raiko inuu dhintay. Laakiin dhinaca kale, Sheen wuxuu muujiyay dareen badan oo isku dhex jira, taasi oo ah farxad uu saaxiibkiis uu nool yahay iyo murugo uu ka qabo in Raiko uu ka qaato Lori iyo Karel, kuwaasoo hadda uu arko qoyskiisa. Sheen uu qarinaya dareenkiisa, wuxuuna si caadi ah ula dhaqmaya qof kasta. Raikona wuxuu la fadhiisanaya qoyskiisa, waxayna bilaabayaan inay bartaan xubnaha muhiimka ah ee xerada. Horta waxaan ogaanaynaa in Morales uu guursaday, wuxuuna la nool yahay qoyskiisa xerada. Gabadh la yiraahdo Andre waxay haysataa walaal, iyada iyo walaasheedba waxay ku nool yihiin xerada. Waxaa kaloo xerada ku jira haweeney danyar oo wanaagsan oo la yiraahdo Caro. Haweeneydaas oo haysata gabar la yiraahdo Sofia. Sofia waxay guursatay nin la yiraahdo. Markaas Raiko wuxuu go'aansanay inuu ku laabto aagii hore, laakiin sabab kale ma jirto badbaadinta Mary oo kaliya. Horta waxaan ogaanaynaa inuu haysto boorso hub ah, hubkaas oo uu ka soo qaatay saldhiggii booliiska. Balse boorsada ayaa ka dhacday markay soo bursanayeen zombiyada. Raiko wuxuu rabaa inuu mar kale soo qaato boorsadiisa. Raiko wuxuu isku diyaarinayaa inuu la baxo saaxiibkiisa Darrell una dhaqaaqa dhanka iyo Atlanta. Horintaysan bixin, Raiko wuxuu Glenn ka codsanaya inuu raaco, sababtoo Glenn oo qof caqli badan oo agaasan aad u yaqaan. Glenn wuu ka ogolaanaya sababtoo waxaa dusha laga saaray mas'uuliyad aad weyn, inkastoo Mary uu aan ahayn qof wanaagsan. Afar qofood ay isku raacaan, waxayna halis geliyaan naftooda. Markaas Raiko soo baxay, wuxuu imaanay xaaskiisa wiilkiisa una macsalaameen. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku laaban doono Atlanta. Markii ayaga baxan, Lori waxay hadlaysaa Shireen, waxayna bilaabaysaa inay canaanato sababtoo Raiko markii hore wuxuu ku sheegay inuu dhintay. Sheen uu ku xumaanaya maxaa yeelay wuxuu dareemaya inuu luminayo Lori iyo Karel, laakiin wuxuu sii badanaya safarkiisa. Dhanka kale markay soo gaaraan dhismaha, waxay la yaabayaan albaabka dhismaha oo qofulan sidoo hore uu sheegay Douglas. Laakiin Mary halkaas ma uusan joogin, xadhkaha oo kaliya halkaas yaala, sidoo kale dhiigga gacantiisana waa la jaray si uu u baxsado. Markii uu Darrell arko muuqaalka wuu naxaya, wuxuuna qabsanaya howlkiisa. Raiko wuu fargelinaya, wuxuuna dejinaya Darrell. Kadib waxay raacayaan raadka dhiigga si ay u helaan Mr. Mary. waxay arkayaan daaqad jaban, waxayna fahmayaan inuu ka baxay dhismaha. Darrell wuxuu rabaa inuu ka raadiyo Mary dhismayaasha kale, laakiin Raiko wuu ka hor istaagaya maxaa yeelay aagaasi waxaa ku badan zombiyada. Markaas ay waxay go'aansanayaan boorsada hubka jidka taal inay soo qaataan ka hor inta aysan raadin Mr. Mary. Glenn ayaa soo baxay si uu u soo qaado boorsada, kuwa kalena meel fog ay ka ilaalinayaan si uu isaga u noqdo mid ammaan. Balse markii halkaas yimaadaan waxay bala kulmayaan koox kale oo doonaysa boorsada. Waxaa bilaabanaya dagaal. Darrell iyo Glenn waxay iska caabinayaan kooxda, waxayna ku qasbanaanayaan inay ka baxsadaan. Waxay qabsanayaan qof ka mid ah oo dhaawac ah. Raiko iyo Darrell waxay ka cabsanayaan oo waxay ku qabsanayaan inuu tuso meesha uu joogo kooxdaas. Kooxda kale ayaa ku hogaaminaya meesha ay joogaan. Raiko iyo kuwa kale waxay la kulmayaan hogaamiyaha kooxdii, magaciisuna waa G. Raiko wuxuu isku dayaa inuu la gargortamo si ay u sii daayaan Glenn. G wuxuu ku jawaabayaa inuu doonayo boorsada hubka ka hor intuusan sii deyn Glenn. Iyagoo isku diyaarinayaan dagaal, haweeneyda duqa meesha soo galaysa waxayna ka codsanaysaa caawimaad. Dadka oo dhan waxay joojinayaan dagaalkii si haweeneyda duqda wax dhan aysan u gaarin. Haweeneyda Raiko waxay tusaysaa halka uu ku jiro Glenn. Raiko, Douglas, Darrell waxay la yaabaan markii ay arkaan in gudaha ay ka buuxaan dad duqoobay, waxayna ogaanayaan in aaga uu yahay guri lagu daryeelo dadka waayeelada. Raiko wuxuu go'aansanaya inuu ka tago boorsada hubka iyo qayb ka mid ah rasaasta si dadka waayeelka loo ilaaliyo. Waxay aadayaan dhanka gaariga, laakiin gaariga waa la weynayaa. Darrell wuxuu ogaanayaa in Mary uu
gaariga qaatay si uu u argoosto wayna soo cararayaan si ay ayaga u badbaadaan. markii la gaar habeenkii dadka xerada way isku imaanayaan laakiin si lama filaan ah waxaa soo weeraraya zombies badan waxayna dilayaan caruurta iyo dadka kale. Shin wuxuu isku dayayaa inuu ilaaliyo Lori iyo Karel. Raiko iyo Daryl kooxda kale waxay la dagaalmayaan zombiyada waxayna ugu dambeyntii ka nadiifinayaan xerada laakiin dad badan ayaa meesha ku dhimanaya. maalintii xigtay waxay ururinayaan meydka zombiyada wayna gubayaan si infectionka uusan u faafin waxayna aasin dadka garbaaqsadeen inay dhinteen balse waxaa ku jiro mid ka badbaaday laakiin ku dhow inuu noqdo zombie waxayna go'aansanayaan inay ka hortagaan ka hor inta uusan isbedelin. Raiko wuxuu kula talinayaa inay tagaan xarunta la dagaalanka cudurrada maadaama ay tahay meel ammaan ah. waxay raacaan talada Raiko marka laga reebo Morales oo go'aansanaya inuu la noqdo qoyskiisa. ay soo baxaan qofkii marka hore dhaawacmay wuxuu sheegay inuu si dhaqso ah isu bedeli doono waxayna ku khasbanaanayaan inay aga tagaan meel geed ku ag yaal. ugu dambeyntii waxay gaaraan xarunta laakiin markii ay arkaan meydad badan iyo zombies waxay isku dayayaan inay gudaha u galaan xaruntan way quflan tahay laakiin markii dambe albaabka ay furmay waxayna si dhaqso ah u galayaan gudaha. dadka kaliya ee ka badbaaday xarunta ayaa qaabilaya magaciisuna Dr. Edward. wuxuu marka hore ka qaaday baaritaan dhiig si uu u hubiyo inaysan qabin caabuqa. markii uu xaqiijiyay inay caafimaad qabaan wuxuu u diyaarinayaa cunto iyo biyo. kadib wuxuu tusay qolka ay seexan doonaan wuxuuna sheegay in qol kasta ay yaalaan biyo ay ku qoweysan karaan waliba si caadi ah. tanina waxay noqonaysaa markii ugu horeysay bilooyin badan kadib ay helaan biyo nadiif ah. ay qoweysanayaan way nasanayaan waxayna habeen farxad leh ay ku qaadanayaan xarunta. subaxii xigtay ee dhamaantood waxay la fadhiisanayaan Dr. Edward waxayna weydiinayaan ma heshay daawo ama talaal. ka hor intuusan u jawaabin dhakhtarka wuxuu ku qasbanaanayaa inuu sharxo qaabka uu socdo caabuqa. wuxuu ku dhahay haddii qof la qaniino ama la xaqo caabuqa si xawli ah jirkiisa ugu faafaya tartiib u burburinaya xubnaha jirka heerkulka jirkan waa uu kacay ugu dambeyntii maskaxda ayuu ka dilaya. qofku uu dhimanaya kadibna qayb kamid ah maskaxda ayaa mar kale shaqaynaysa laakiin fikir iyo dareen midna ma jiro. markaas qofku isu bedelaya zombie oo ah jid soconaya oo kaliya rabitaan ku shaqaynaya. dhakhtarkan wuxuu qiranayaa inuu isku dayay wax waliba si uu u helo daawo laakiin dhammaan way fashilmeen. wuxuuna u sheegay gabi ahaan inuu ka qoostay rajada kadibna wuxuu tusay saacad hoos sii socota kaliya waxaa ka hartay 30 daqiiqo. markii ay weydiiyaan waxa dhici doona markii waqtiga dhamaado wuxuu si lama filaan ah ugu jawaabaya markii ay korontadu dhamaato markii ay korontadu ay tagto xarunta oo dhan way qarxi doontaa. taasi waa sababta uu sugayay geeridiisa isagoo go'aansaday inuu halkaas ku dhinto. aad ay una xayaan waxaan isku dayeen inay baxsadaan laakiin Dr. Edward ay albaabada qufulaya wuxuuna ku dhahayaa adduunka oo burburay dibadda ama banaanka wax rajo ah ma yaalaan. isagoon u raacinaa fiicnaan laheeda inaad tila dhimataan halkii aad ku dhiman laheedeen sila ay xanuun. uma aysan dhageysan hadalkiisa waalan waxay isku dayeen inay jibiyaan albaabada laakiin wuxuu u sheegayaa in albaabadaasi loogu talgalay inay xitaa gantaalo u adkaystaan mana jabayaan. haddana mar kale ay hanjabayaan laakiin waa uu ku diidaya inuu furo dhammaantood way quusanayaan waxaynu arkaan in tani ay tahay dhammaadkood. laakiin Raiko ayaa la hadlaya wuxuuna ku dhahayaa in si fursad biliis dibadda waan isku dayaynaa inaan dadka ku caawino. caruur ayaa nala jira waxayna mudan yihiin inay helaan fursad kale. wuxuu kaloo ku dhahayaa man aha inay sidan ku dhintaan. Raiko wuu aamusay haddana hadalka ayuu sii wadaya ilaa uu qalbiga ka jilciyo dhakhtarka. ugu dambeyn Dr. Edward wuu aqbalaya wuxuuna furaya albaabada wuxuuna u rajaynayaa nasiib aan safarkooda adduunkan cabsida leh. ka hor inta aysan bixin dhakhtarka wuxuu Raiko ereysira ugu sheegaya dhigta sirtan oo noqon doonta mid muhiim u ah mustaqbalka. Raiko uu maqlo wajigiisa isbedelay laakiin uu xakameynaya maadaama waqti uu ka haray isagii kooxda kale oo dhan way soo baxaan ilbiriqsi kadibna xaruntu way qarxaysaa. sidaas ay Raiko iyo kooxdiisa ku helayaan nolol cusub waxayna raacaan baabuurtooda iyagoona dhaqaaqaya meel kale si ay u sii wataan safarkooda. waxaan halkaas ku soo dhamaaday season-kii koowaad ee filimka.